بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيلي صاحبتي قروحدا بدنا اهلكيغي صاحبتي ودا دheera ma wada wanaagsantihiin alxamdulilah anaga waa fiicanahay rabadaanta sina macaaho fudud oo hawl yar baa ilaahay subxaana watacaala noogu dhameeyey nooguna dhammayn doonaa waqti maalmo yar oo tirsan baa inoo hadhay kulligeenba qof kasta meesha uu joogo allaha ku amaansada allana ha u fududeeyo waan ogahay waa bil rabadaan qoma aanad jeclayn inaa maaragtay cod yar iyo waxaa intaan idinku soo duuduubo aan idinka qaso maaragtay nimcadiina iyo acmaashiina iyo waxaa khayrkaad ilaahay maaragtay u shaqaysanaysaan hortiisa haddase waxaan insha allah rabaa inaan fariin yar halkan gabadh walaashay uga gudbiyo haddii ilaahay yiraahdo gabadhaasna waxaan ka rajaynayaa inaysan xumaan iyo dhib iyo arkinin aad iyo aad baan runtii marar badan isiri codkan soo duub haddana ilaahay ma qadarinin marar badan waxaan siri raadi horta way kalo aad walaasha ula hadashid walaashaan marka raba inaan codkan u duubo waxa weeye gabadh la yiraahdo Xafsa Axmed Qoorgaab hooyo gabadh yar ah caruur laga qaatay 3 wiil oo yar oo qurux badan ma sha Allah tabaarakallah ilaahay gacanta islaamka ku soo celiyo gacanta hooyada Allah ku soo celiyo waalidiintooda aamin ya Allah marka walaasha yar ayaa waxaan jeclaystay inaan maaragtay codkan yar u duubo haddii ilaahay yiraahdo uu gaadho marar badan waxaan raadiyay inaan helo lambaradeeda ama meel aan kala xiriiro sida Facebook oo kale ama Snapchat oo kale ilaahay ma qadarinin waan waayay inaan helo because waan waayay sababtoo ahna wax maaragtay ma ku soo qorato waxba marka walaashay fariintan u diraya waxay tahay maalmihii ugu horeysay ee ilmaha ay loo bilaabay in maaragtay ay video ka soo duubto ayaan maaragtay in badan waxaan message ku qoray walaal caruurta taxadar walaal caruurta intii gaalada kula joogto ilmaha maaragtay iyaga ku mashquul ilaahay ma qadarinin waxaanu arkay inaysan arkin message-yadii waxaan haddana aad u sii arkay walaalihii commentiga aad ugu soo qorayo walaal ilmaha intii gaalada kula joogto ilmaha aad ugu celcelinaya runtii ilaahay khayr badan ha ka siiyo marka aniga hadda arrintan aan raba haddaan walaashay fariintan message-kan u soo diraya wuxuu yahay ma aha inaan dhibaato ugu geysanayo xumaan laakiin inaynu taxadarno oo taxadarka isfarno waa wax shay aad iyo aad u muhiima in badan waxaan sugayay dadka maaragtay youtuberada ee aadka u hadla baan islaha kulley gabadha la wada dad badan aragay inay maaragtay gabadha taxadar siiyaan haddana ilaahay ma qadarin ma aanan arag haday xitaa dad siiyaan weli ma aanan arag marka maadaama aan waayay walaashay maaragtay meel aan kala xiriiro waxaan jeclaystay halkan inaan ugu soo duubo codka ka bacdina aan ku taagareeyo aan u share gareeyo page-keeda YouTube-ka ugu share gareeyo haddii ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa inaysan xumaanaya arag laakiin walaasheed oo maaragtay wanaag la jeclaatay inaan ahay biidmillaahi raxmaan walaashay macaane haddii codkaygana ku soo gaadho Xafsa Axmed Qoorgaab ilaahay horta waxaan kaaga baryayaa inuu ilaahay awlaadaadi kuu soo celiyo adiga gabdhaha kale oo dhan awlaadoodu ka maqan tahay inta haysatana ilaahay waxaan uga baryaynaa in ilaahay u xifdiyo u ilaaliyo intaan ilaahay awlaad siinina ilaahay awlaad saalixiina allaha siiyo jirkooda allaha u sarrifo xabsiyada kuwa inagaga jira allah xabsiyada inooga soo daaya aamin ya allah walaal macaan fariintan yar aan kuu soo dirayo waa fariin walaaltinimo iga dhageyso haddii ay kusoo gaadho codkaygan walaal macaan marka aad la joogtid ilmaha lagu keeno ilaahay subxaana watacaala ayaa uunbaa dhammaystiran ummadaha ilmaha kuu keenaya ma dhammaystirna sida aad adigu rabtidna ma noqonayaan ilaahay ha kuu sakhiro allah kuu cabiidiyo ilmaha walaal macaan marka lagu keeno qof baa kugu kor ilaalinaya saad maalintii hore noo sheegtay waxay qoraysaa wax kastoo ay aragto waxaa markay qorto waxaa laga yaabaa adigana si fiican ula socotid berri ka maalin haddii maxkamad mar kale lagu noqdo ama aad adiga maxkamad dalbatid waxaa lasoo hordhigayaa hooyada marka ilmaha loo geeyo siday ula dhaqmi jirtay hooyooyinka caruurta hadda haysee hooyooyinka looga dhigay waxa iyaguna sidoo kale diyaarsanayaan waxaa lamid ah mar walba xitaa haddaysan markaa buugga iyo qalinka haysan maskaxdooday ku qorayaan maskaxdooday ku duubanayaan hadhowto ayay maaragtay ay meel ku qoranayaan marka walaal macaaney waxaan ku leeyahay ilmuhu intay kula joogaan hooyada haddii ilmaha laga qaato iyo haddaysan laga qaadanba waxa wanaagsan meel kasta hooyadu joogto horta marka ilmaha wado inaysan wax kale eegin ee ay ilmaha waqti siiso ilmaha waqti geliso haddii hooyadeed macaan ka hor timaado salaanto kaliya laakiin iska dhaafto tirada hooyo hadda caruurtii baan wadaa waa inoo hadhow marka yacni aad in looga taxadaro ilmaha markasta waa muhiim
adiga walaashay haddii maadaama aan adiga hadda kaa hadlayo fariintana adigaan kuugu talagalay walaal macaan ilmuhu markay kuu yimaadaan ilmaha la facnoqo haddii ay ilmuhu jiifsadaan la jiifso hadday ciyaaraan la ciyaar hadday ordaan la orod intaas waa laguu qorayaa walaal ilmaha dhabta gasho laabta gasho hooyada naxariista waxaa la yidhahdaa waxay ka helaan labadaada naas dhexdooda intaad ilmaha saa ugashay dhabarka saa uga salaax walaal ilmaha aada ugu dhowow macaaneey kaamarada walaal iska dhig macaan hadalkaada hadlaysidaad caruurtu intay kula joogtaad fideoga duubaysid waa ku barayaa walaal macaan waa walaashaa baanahay iska jooji walaal macaan dhibaato inay kuu timaado ma rabo caruurtaada in lagaasii fogeeyo ma rabo runta haddaan kuu sheego arrinta hadda aniga aan arko markaad fideoga duubaysid anigu haddaanahay walaashaa Soomaaliyeed islaam kula ah haddii aan shaqada hayo gabadha supervisorka ay hayso waxaan odhan lahaa hooyadu caruurta ma rabtaan dhihi lahaa kuma dhahayo balse waan odhan lahaa haddaan shaqada hayo waan ku barayaa walaal macaan kuma canaananayo kumana amrayo waxaan kula jeclaaday sida tan walaal macaan caruurta intaad la joogtid kaamarada danso kaamarada markaad dansatid haddii ay meel kuu istaagi karto meel ku rakibo waa haddii laguu ogol yahay ilmaha inaad duubtid ilmaha marmarka qaar waxaa dhacda maxkamaddu inaysan xitaa ogolayn ilmaha in sawiro laga qaado baa dhici karta waxaa dhici karta mararka qaar waalidiinta ilmaha loo geeyay inay dhahaan ma rabo ilmaha in sawir laga qaado haddii ilmaha la siiyey weeyaan iyaga walaal macaan kuma dhahayo sharciga international lowga waan aqaanaa kuma dhahayo laakiin waxaan aada isugu dayaa inaan fahmo wadamo badan sharciyadooda inaan fahmaan isku dayaa marka loo eego wadamadan aynu joognana kulli way isu wada egyihiin wadankan aniga joogo iyo kaad joogtid aada bay isugu egyihiin wadamo badan baa isku sharci eg aadna isugu dhow walaashay macaaney marka waxaan ku dhihi lahaa walaal macaan waxaa dhici kartaa xitaa dumarkan cadaanka inaysan ogolayn inaad sawir ka qaadid oo aadan wax ogolaanshaha ka haysanin walaal macaaney waxaan ku dhihi lahaa ilmaha intay kula joogaan kama tagaya adiga ha kugu korma tago ka ooyaya ha kugu kor ooyo walaal naxariista hooyada sii walaaliyay ribood khaldan kaa gudbin runta haddaan kuu sheego walaal macaan meelo badan ayna inagu wax ka eegin bay wax ka eegaan daldaloolo badan bay dadka ka soo galaan iyaguna kama aha xumaan laakiin waxay ka tahay ilmaha ilaali iyo waxay ka tahay xuquuqda ilmaha ilaalintooda ka tahay walaal inama doontaan oo inama gardaraystaan ilaa iyo inagu aynu faraha la gallo ilaa inaga ay wax dayaca inaga arkaan ilaahay haynaga qabtooye inama gardaraystaan way inoo somo wax xun yarba inoogu marmarsiyoonayaan waxaasina ma aha waxay qofna ku taargadgaraynayaan gooni ah waa wax ay maaragtay sharciyo iyagu samaysteen walaal macaan erayada aad lahaysid naagtan waa cunsuriyadoo kale sidan weeye ilmahayga cadowgaasaa haysta walaal waxaa laga yaabaa in lagaa turjumo in turjubaano Soomaaliyeed kaa gudbiyaan oo ay dhahaan noo turjumo wuuna ku khasban yahay waxa inuu turjumo turjubaanku oo waa shaqadiisii lagu dhaariyay waxaa laga yaabaa walaal macaan body language-kaaga qaabka aad u hadlaysid inay fahmi karto waxaa laga yaabaa inay dhibsato hadallada aanad fahmayn inaad ku hadlaysid walaal waxaa laga yaabaa inay turjubaan u qabsadaan waan ku barayaa walaal fideoga iska jooji macaaney xitaa haddaad fideoga joojisid ilmaha walaal waqti aad u badan sii walaal ilmaha waxaa la rabaa inaad markaad aragtid aad ku carartid waxaa la rabaa marka ay tegayaan inay kaa dareemaan isbedelkaaga iyo sida ilmuhuna kuu rabaan in loo arko ilmahaaga walaal jacayl ka samaysa Allah ku jeclaysiiya Allah kuu sakhro haddii saad la hadli wadaad fideoga duubtid oo marna aad Soomaali ku hadashid ayagii walaal waxay ku arkayaan qof meesha joogo oo kale isaga ka arkayaan hooyo kuma arkayaan macaan ilmaha ku dhawow kaloos aad ugu noqo laabtaada gasho hooyada ilmahaaga haysa maanta cid walba iyada kaa xigta community-gaaga Soomaalida iyada kaa xigta hooyada macaan iyada maanta kaa xigta laana ilmahaaga bay haysaa la saaxiib hadalka wanaagsan dheh haddaad awoodid marba hadiyad yar sii ilaahay ku sakhraha ku cabiidiyo walaal macaan gabadhaha caruurtaada haya aad ugu dhawow saaxiib la noqo ku dhawow waxaaba laga yaabaa xitaa xilli aan lagu ogolayn ilmaha oo dawladdu ay ku ogoleen xilligan aad la hadashid xitaa inay kula soo hadalsiisaa dhici karta walaal macaanayga ma aha xumaan kumana amrayo kumana dhahayan balaaya kugu dhacaysa kumana dhahayo waa lagu dacweynaya laakiin waxaan ku leeyahay taxadar message-kan waxaan hawada kuugu soo mariyay
waxaan waaye meel kale aan kaala soo xidhiidho waxaana kaloo kaa codsanaya masajada laguu soo qoro walaal akhri masajada waxbaa laga faa'iidaa waxaana kaloo kaasii codsanaya walaal detailskaaga meelaha sida contact numberkaaga oo kale ama Facebook ama Snapchat soo raacso walaal linkiga hoos soo dhigo waxaa laga yaabaa qof lawyer ah ama qof social worker ah ama qof sharci yaqaan ah oo Soomaali inuu ku arko oo ku soo waco oo kula taliyo oo tala fiican ku siiyo oo aad caawimo ka heshid baa laga yaabaa dadku badanaa waxay dhahaan lambarkaaga ha iska siin dadku way ku waalayaan baa lagu yiraahdaa qofna qof ma waali karo qofka aad aragtid inuu ku dhibayo adiga ayaa iska xidhaya oo dhahaya qofkan uma baahna uu dhib ugu yahay hadalkiisu laakiin walaal macankaan adaa iska kantarooli karaa telefoonkaaga marka waxaan kaaga wadaa qofkii marka aad isleedahay waxbuu khayr buu kuu wadaa sida maamo kuu ducaynayso kale sida culimo ku aragto oo kale sida lawyer ama qof social worker ama qof sharci yaqaan ah oo ku arko oo kale waxa laga yaabaa ama hooyo rabta inay ku waaniso inay ku soo hesho laakiin haddii aad walaal wax lambar ku soo qoranin aanu dhibna aragno walaal waxa laga yaabaa dadkaaga inay ku waayaan Soomaaliyeed dadkuna walaal waa la isu wada baahan yahay ilaa xitaa dadka aan la joogno ayaynu u baahanahay iyaga ama aragta ayaa laga yaabaa wax badan ka faa'iidid marka walaal wax adduunka khasaare ma jirto ilaahay awlaadaada ha ku soo celiyo walaal macaanay taxadar iskuna day koorasooyinka lagu barto caruurta iyo sida maaragtay dadka ilmahaaga haysta loola shaqeeyo sida maaragtay loo aqbalo nolosha ina walaal isku dayna baratid ila shaqeeyo dhe koorasooyin baan rabaa dhe qof kastana waxaan ka codsanayaa haddii mistake ka dhaco khalad ka dhaco waxaa tiraahdaa anigu sharcigan ma aqoon wadankan ma aqoon waanadi baraya sharcigiina ay bara iyo ifahansiiya xitaa hadduusan khalad kaa dhicin inaad wadamadan qurbaha timaadaan waxaad tirahdaan sharciyada ay bara sharcigiina ay bara waxaan rabaa sida ilmaha loo koriyo haddaynu runta isu sheegno bisaraaxa wadankeeni markaynu joognay maynu aqoon sida carruurta loo koriyo runtii maynaan aqoonin mararka qaar xitaa wallaahi waa naxaa caruuraheenni sidii loo korin jiray markaa barta sharciyada wadanka fahma fahansiiya dhaha walaal macaan ducooyinka adkaarta qur'aanka salliga nabiga calayhi salaatu wassalaam walaal badso ilaahay idankiisana ilaahay wuu kuu soo celinayaa awlaadaada waadna guulaysanaysaa biidnillaahi raxmaan waxaan isku dayayaa laba duco anigaan aad u jecelahay duco ka mida nabiga calayhi salaatu wasalaam markastoo murugo dareemo waa akhrin jiray inkastoo rasuulku ducooyin badan akhrin jiray haddana ducadatan markastoo rasuulku murugo yar dareemo wuu akhrin jiray sala allahu calayhi wasalam waan kuugu soo dhejinayaa haddii ilaahay yiraahdo ilaahay ha ku xifdiyo awlaada allah kuu soo celiyo gurigaagii buuxay walaal allah kuu soo camiro ilaahay waxaan kaaga baryayaa inta yar aad soo martay ilaahay inuu dembi dhaaf kaaga dhigo bisha Ramadaan ilaahay waxaan kaaga baryay fadligeeda ilaahay inuu kugu soo celiyo awlaadaadii anigaan ku aqoon baan kuu duceeyaa adiga gabdhaha kale oo dhan islaamka qof kastaan codkiisa maqlaana wuu idiin wada duceeyaa allah ku barakeeyo walaal macaaney fiidiyowgan intaasaan kusoo gabagabeynayaa codkaygu wuu isbedelayaa runtii mar walba aad iyo aad iga raalli ahaada assalaamu calaykum